بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مالن فيلا هكذا هذا وركي ورباهنتا قرنكا مالن مثل هذا وتارضنا ولا باهي كبيعنتا توميكودا بلا فبراير سنة كلامه دكون إلا باتونشان تقدم بدور كان جين ما دون ولا باكوميدا إذا ماذا معمولك بنتلان ودجال حوجن كلا جرى كوحار جحسد داعش إذا ماذا دراويش الدولة قبلت الصومالية ده بنتلان يولبا يوفشل ينور كوحد قوارشتنا في العارية داعش يوحك قادم فريسمع إذا ماذا يوكلها ينبور ليدا على مسكاد قبل كبرية بنتلان قوارشت داعش يجب حوجن ولبا لنكوجيس ديجانكا oo markaasay weerarka baabulunka ka qaadan miidadsho yalla ka argayada deedsan buuraleyda almiska ee gobolka bari oo ku tirsan ee Puntland madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud yadhowaan waliba uu siina xoojiyay baaq golaha xukuumadda federaalka Soomaaliya ka eedan howlgalka ka dhanka argagixisada Daesh oo ku dhuumaaleysadahan buuraleyda almiskaad ee gobolkaasi bari uu soo bogaadiyay guulaha taariikhiga oo markaasi hooyan ciidamada daraawiishta dawlad goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland howlgalada ku socda buuraleyda almiskaad ee gobolka bari iyo khawaarijta Daesh waliba halka jeysay qasaaro xoogan oo markaasna iska jira khasaare dhimasho dhaawac horjoogayaal ajaanib ayaa la sheegay antiyo ka dhamadeen howlgalada ka socday deegaanada gobolka bari maalmood la dhaaf madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafta-garan iyo qaabilay wafdo ku dareera jimciyada qurmaha ku dhaxayta madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdulcasiis Xasan Maxamed lafta-garan iyo xafiisyay magaalada Baydhabo waliba uu madaxtooyada ka qaabilay wafdo hogaamiyay kaaliyaha agaasimaha guud hay'adda hunguriga beero ee dhinaca Afrikaan qaabilsan qaramada midoobay oo markaasay u saadeeri magaalada Baydhabo aan weheli wakiilka hay'adda FAO oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya kulanka ku dhig magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baydhabo ku qayb galeen xubno ku tirsan golaha wasiirada xukuumadda koonfur galbeed maamulka koonfur galbeed yeelan ku hadalay mashaariicda hay'adda FAO ama FAO oo ku wada koonfur galbeed iyo sidii markaas lan hirgeliyay mashaariic horle oo lan adeegsado bulshada ku nool guud ahaan deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida Soomaaliyeed waliba xukun markaasay kariday xukuumadda ganacsatada oo la sheegay intii xukun weydiisay kooxda argagixisada maxkamadda ciidamada qalabka wadeeya xukun libiloode waliba kariday ganacsada Cabdifataax Yuusuf Xirsi Cagweyne oo markaasay garsooran weydiisay kooxda khawaarijta ganacsada Cagweyne yalla ka eeday intii maxkamadda beenaadka khawaarijta ee deegaanka gandarsho ee gobolka Shabeellada Hoose uu saanka dacway afar qof haana soo markaasay uu kulahay beesadeenge eedaysanayaalka ganacsada ka lahay dukaan oo la ka gadaw raashinka iyo waliba uu la sheegay intii uu saan xukun doonada kooxda khawaarijta oo ku sugan gobolka Shabeellada Hoose maxkamadda degmada Kaxda taasoo xukuntay antii lacaga uu ka lahay irgaasay iyo siyan balse mid kumida afartii uu dacweeyay qaati racfaan walibana kiisyo markaas la ku wareejiyay maxkamadda gobolka Banaadir eedaysanayaalka iyo teegan maxkamadda gobolka Banaadir taasoo bedelshana ka dhawaaqday inta khawaarijta iyo dacwadan walibana markii uu hanagadi hay'adaha ammaanka qobadan degmada Kaxda 17 bil September 2024 marxaladda shalgadiisnii wala baaris dheer kureed iyo garsooraha maxkamadda ciidamada qalabka wada waliba usgeeka ku xukumay Cabdifataax Cagweyne libilood oo xabse xubno ku tirsan guddiga madaxbanaaw ee doorashooyinka xuduudo waliba kormeerana gobolan diyaari arrimo doorashooyinka dalka xubno ku tirsan guddiga madaxbanaaw ee doorashooyinka qaranka iyo waliba soodimaya geek waliba kormeerana qaybo kumid hajeedamada lan asteeyay doorashooyinka degmooyinka gobolka Banaadir kormeerka guddiga iyo waliba uu markaasay iyoonka kuur galayeen diyaarinta goobo lan asteey cid bixintii waliba diibashada arrimo doorashooyinka xubno ku dareer guddiga intii uu ku guda jireen kormeerka waliba kulamo la qaadana mas'uuliyiinta markaasay dadweynaha ka nool degmooyinka Kaaraan Yaaqshiid Hilwaa iyo Gubadley mas'uuliyiinta degmooyinka la kormeeriyay idaayan intii diyaaran in doorasho golaha deegaanka iyo waliba intii dadweynaha iyo doordan anka dambeynta xubnaha guddiga iyo sharaxaad si dadweynaha umada iyo kaleyn shacabka Soomaaliyeed intii doortan madaxdiyo waana lan asteey anti fursad anta sidii doordan lahaayeen qofkii iyo mas'uulku nagada lahaayeen hogaamiyaha dalka antaasayna may bahayeen qodobadii guud akhbaaradka caalamkana waliba kumida dawladda Masar oo qobada Sri Lanka u arinsado arrimo Falastiin
masar iyo ka dhawaaqday inti 20 bil Febraayo markaasay iyo martigeli doonta shir degdeg oo carbeed kaasoo lanku wada hadala doona arrimo Falastiin gaar ahaan Qatarta ka eedan hajeedinta madaxweynaha Mareykanka Donald J Trump oo qusays anti Falastiiniinta la koror marinka Gaza bayaanka ku bahay wasaaradda arrimo banaanka dalka Masar iyo la ka sheegay anti dalkaasi martigeli doona shir madaxeedka jaamacadda Carabta oo ku dhow Qaahira kureed wada hadla heer sare oo maalmo la dhaafi ku dareerin dalalka Carabta iyo ku jiraan dowladda Falastiin oo codsatay inta la qabado shir madaxeed sallan ku wada hadala qabyaalada Falastiin waa qadiyada Falastiin madaxweyneyaalka Masar Abdel Fattah al-Sisi iyo boqorka Urdun iyo waliba iyo ka gacan seerana باقي دونالد جي ترامب inta Falastiin la daji doono goobo kale iyo waliba inta Mareykanku soo la wareega marinka Gaza hajeedinta madaxweyne Donald J Trump iyo waliba iyo ka dharfan guud ahaan dunida Carabta oo ka jirta Masar Jordan Saudi Arabia iyo xulafo kale oo maamulka Washington suwiinhan ka horjeesada go'aan shay warkigeena maadoonan tan ku dhanyay